عينكبا عقلوا موايلي عينكا وحلويلي ururka saxafiyiinta naafada Soomaaliyeed Somali Disability Journalists marka loo soo gaabiyo sodja waxyaabaha runtii aan u asaasnay waxa ay tahay markaan aragnay maxaan ku raahdaa baahi tiro badan oo runtii loo qabo ururkan in la helo maadaama maxay ahayd oo ayba dhacayso mararka qaar dadkii disability-ga ama naafada ahaa ee wadanka joogay maadaama aan la helaynin dabcan hay'ado hadda maanta si rasmi u matali kara ama dhinaca warbaahinta ha noqoto ama dhinacyada kale ha noqoto ayaan anagu horta waxaan go'aansanay inaan isxilqaadno oo ururkan aan samayno sababtoo ah in la iska sameeyo wuxuu maartaa macno ma sameynayso laakiin waxa macno sameynayo in maxay ahayd ujeedooyinkii loo aasaasay la hirgeliyo dabcan waxa ka mid ah in maartaa xagga shuruucda maartaa aan aad ula soconno dawladdu ay dejinayso waxaan ognahay shuruuc badan oo la sameynayo maxay ahayd oo xitaa kuwa naafada loo sameeyo laftirkooda qayb ka yihiin waan ognahay dadkii ay u baahan ama dadkii loo baahnaa inaan dabcan dee la tashi lagala samaynin oo maxay ahayd aan aad fursad iyo waqti ay u baahan yihiin ama ay wax badan kaga oran karaan aan laga siinin marka ururkan wuxuu masalayaa maxay ahayd dadka maxaan ku raahdaa naafada Soomaaliyeed maxaan ku raahdaa wadanka Soomaaliya jooga gaar ahaan dadka meediyaha ku jiro dadka meediyaha ku jira oo naafada maanta runtii marka la fiiriyo waa number maxaan ku raahdaa Muqdisho marka laga hadlayo runtii aad u yar dadka qaarkiis dabcan markaan fiirino xaqiiqada qofka gacanta la ama qofka maxaan ku raahdaa lugtu ka maqan tahay oo lug artificial ku soconayo haddana meediyaha ku jiro ma aaminsana dadka qaarkiis inuu ninkaas naafaya dadka qaar waxay aaminsan yihiin qofka aragga naafada ka ama qofka maxaan ku raahdaa ii sheeg maqalka naafada ka oo kaliya inuu markaa naafo yahay marka waxaan marka garanay inaan samayno horta ururkan oo aan fiirino maxaa la yidhaha baahida loo qabo markaan runtii sameynaynana waxyaabaha aan ka fakarnay qayb ka ahayd baahidana dabcan waa runtii arrin aad u muuqato sababtoo waddanka aan joogno maanta boqolkiiba boqol amnigiisu dabcan sax ma aha waa aragtay wax walba iska dhacayo daqiiqad walba wax dhacayaan waxaa laga yaabaa maxay ahayd falal ama wax aan lagu talagalin inay dhacaan qof baa maxay ahayd si degdeg wax ku soo gaaraya marka maalin walba sida shacabka Soomaaliyeed dabcan wax u soo gaaraan oo qaarkood ay u naafoobaan ama maxaan ku raahdaa si kale wax uga noqdaan ayaa dabcan saxafiyiintuna saasoo kale khatar ugu yihiin marka kuwo kaloo hore u jiray oo dabcan xaaladaha dalka ka jira aawadeed u naafoobana way jiraan marka ururkan waxaa keenay caqabadahaas iyo baahiyahaas tirada badan inaan samayno annaguna marka ujeedkeenu wuxuu yahay marka ugu horeyso in maxay ahayto dadkan la soo saaro xaqii rasmiga ahaa ee dalkan iyo dadkan ay ku lahaayeen macnaheedu ma aha inaan annaga wax dheeraada raadinayno macnaheedu ma aha inaan maxay ahayto dad kale maarata ataag aan ku nahay ama maxay ahayto aan la dagaalamayno laakiin muhiimaddu waxay tahay dadkan maarata naafada ee warbaahinta ku jiro maxay ahayto inay helaan tusaalaha marka aan aragnay oo nagu sababaya inaan samayno ururkana waxa qayb ka ahaa markaan aragnay tusaale ahaan xeerka warbaahinta oo kale oo maxay ahayto hadda sidaad hordhici waraysigaba ku xustay shalay aan barnaamij ka samaynay xeerka dabcan marka la fiiriyo meel dadka naafada ay ka soo galayaan ma lahan tusaale hadda telefishinka aan maarta aan joogno ama telefishinada caalamiga ah dadka maqalka maarta naafada ka ah waxaa jira waxyaabo loo dejiyaa jira oo luqado marka lagula hadlo si news codka ama maadaama uusan maqlaynin waxa uu daawanayo uu u fahmo oo maarta fahmad fiican uga haysto qofka inuu macno kale ma sameynayso inuu muuqaal kale daawado laakiin waxa macno sameynayo waxa muuqaalku ku saabsan inuu fahmi karo dabcan xeerka marka la fiiriyo hadda kuma xusna marka sidoo kale la fiiriyo maxay ahayto dadka maxaan ku raahdaa aragga naafada ka ama si kale naafo u ah waxa weeyaan tusaale haddii hadda xeerkan uu hirgalo uu dhaqan galo oo laysku waafaqo waxaa dhici karta haddii la rabo berri markii ay maarata shaqo doontaan in la dhihi karo dee xeerka warbaahinta kuma xusnadeen sida aawadeed marka qodobo ama wax idin damaanad qaadaya maanta ma hayno haddii marka taas ay dhacdan hadhow waxay noqon doontaa caqabad ay noqon doontaa anoo marka tusaale ahaan hadda saxaafadda kusoo jiray wax ka badan 10 sano oo maxay ahayd bulshada Soomaaliyeed warar iyo barnaamijyada u soo gudbin jiray haddii marka uu isaameeyo oo shaqadii iga joojiyo hadhowna dabcan intaan carari lahayn oo maarkino ama shalay maxaa wax u sheegi weysay ama shalay maxaa fursado u raadi weysay la dhihi lahaa waxaan go'aansanada inaan maarta wax aan isku difaacno oo xeerkii maarta aan maxay ahayto aan uga hortagno waxyaabaha aan saxda ahayn ee ku jiro inaan sameeyno taasna dabcan runtii waxay ahayd waxa ugu wanaagsan ama talaabada ugu wanaagsan oo aan qaadi karnay fursadda ugu fiican oo sameyn karnay waana sameynay marka waxa waaye
ururkuna dabcan sidaas uu asaasan yahay wax kale oo ujeedooyin kale oo dabcan loo asaas ma jira aan ka ahayn ilaalinta xuquuqdaas iyo difaacidda dadkaas maxaan ku rahdaa liito ee maanta maxay ahayd marka loo fiiriyo xaqa 90% aanay haysanin kalgacal dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah ee ku jira warbaahinta ma ogtihiin inta tiro ay yihiin inta meel ay ka howlgalaan iyo sida aad iskugu xiran tihiin maxaa xooga ka heesaa waa runta dadka maanta horta muqdisho markaan joogno horta waa saldhigga koowaad ama xarunta soomaaliya markay maanta muqdisho tahay waxaa jira dad badan oo runtii naafa warbaahinta ka shaqeeya weliba waxaa maarata dadkaan u baahan yihiin fursado badan in la siiyo maxaan ku rahdaa ha noqoto mid tababar ha noqoto maxaa la rahdaa qalab iyo wax kasta oo u fududeyn kara maxaan ku rahdaa shaqadooda waxaa ognahay dad maarata aragga naafa ka ah oo warbaahinta ku jiro maxaan ku rahdaa ii sheeg ma haystaan marka loo fiiriyo qalab iyo waxa ay isticmaali karaan maanta oo ay ku shaqayn karaan waxaa kaloo xusid mudan inaysan jirin maxay ahayto xeerka warbaahinta lafturkiisa hadda markaa soo qaadato marka uu warbaahin waxa loo yaqaano markuu ka hadlaayo wuxuu soo qaadanayaa wargeys madbacad wax lagu daabaco iyo maarata telefishin iyo radio madbacadda wax lagu daabacayo lafturkeeda markay timaado way si kala qaybsamaysaa dadka maarata dadka aragga naafada ka waxaa jira wax ay maarata isticmaalaan oo shaqada ay qayb kaga noqon karaan maarata hadday macallinimo noqoto hadday maarata wax kale noqoto dadkaasoo kale waxaa jira wax maarata isheg ay isticmaalaan ama wax lagu bara caalamka oo dhan farta loo yaqaano brailka haddii marka brailkii aan maarata isheg inay sharci tahay waddankana sharci ka tahay shuruucda ama sharciga dalka aan lagu xusin oo luqadii ama qoraalkii ay wax ku samaynayeen oo kale tusaale ahaan aan maxay ahayto lagu caddaynin waxaa hadhow markaas imaanayo in hadhow maarata mashiinadan maarata brailka daabacayo xitaa laftirkooda inaan maxay ahayto medio isticmaali karin sababtoo ah waa run oo ayagu ma yaqaanaan waxa maarata waxaan mashiinkan uu qabanayo ama daabacadda uu samaynayo habka uu u qoran yahay iyo habka loo akhrinayo ma yaqaanaan maadaama marka aysan garanaynin waxa uun laysaga soo koobay madbacad wax lagu daabaco daabacadda marka qof walba markaa fiiriso 98% ama 97% aan dhaho waxay u fahmayaan oo kaliya midda printerka wax lagu daabaco oo maarata dadka caadiga ay akhristaan sida hadda wargeysyada iyo buwaagta maarata midda lagu daabaco marka sharcigan halkii sabood iyo taageero lagu samayn lahaa maxay ahayd horta laguma samaynin oo la tashigiisuna ma noqonin mid maxaan ku rahdaa dadkan maxay xaqoo sharcigan ku yeelan karaan aan laga dhihin oo macnaha laga tixgelin marka waxaan rabaa inaan kuu sheego aan usoo laabto marka su-aashii dadka muqdisho jooga keliya ma aha waxa ururkan aan u samaynay ururkan Somali Disability Journalist wuxuu u aasaasan yahay min gobollada koonfureed ilaa gobollada waqooyi dadka jooga runtii hadda bayska koowaad caasimadda ah runtii caasimaddaan ka bilownay maxaan ku rahdaa maadaama caasimaddaan ka bilownay waxaan rabnaa inaan wadno ilaa gobollada dalka ha noqoto south west ama koonfur galbeed ha noqoto jubbaland ha noqoto hirshabeelle ha noqoto galmudug ha noqoto puntland ilaa maxay ahayto xataa somaliland marka waxa aan ujeeddada aan ka leenahay marka waxay tahay waxaan inaan annaga noqonno horta dad isku mowqif ah hal ujeeddo iyo hal hadaf leh maarata hal meelna u wada socda runtii marka aan taas runtii hirgelino waxaa imaanayso in qorshaheenna uu si dhaba u shaqaynayo hadhowna aanu noqonayna maxaa la dad aan la loodin karin markay timaado xagga sharciyadda ka hadalkeeda iyo difaacisteeda runtii dadku marka sidaasay u kala duwan yihiin ilaa hadda maku dhahayo dadka mediaha ku jiro waa noo tira koobayin oo listigooda micnihi waa haynaa laakiin waxaan ognahay inay dad badan jiraan gobollada dalka joogaan bara cayiman ay ka howlgalaan maxaa la yidhaahdaa soomaaliya marka maadaama dadkaas ay joogaan inaan annagu raadino oo maarata ii sheeg ururkan ku soo darno xuquuqda ay leeyihiin ama ha ahaato mid gaara ama ha noqoto mid guud inaan maarata u raadino oo maarata aan sidaas maarata xoogga ku saarno taasna waxaan filayaa shacbiga soomaaliyeed iyo dabcan cid kastoo waxgarada way nagu taageeraysaa cid markaa nagu diidaysaa inaysan jirin baan aaminsanahay 100% ah soomaalidu waa dad maarata wanaagga iyo samaha jecel maxaan ku rahdaa horumarka jecel aad u taageera maxaa la yidhahdaa wax kasta oo wanaagsan marka arrintaas iyadana dabcan fursad fiican baa loo arki karaayo waxa fursad loogu arkaya waxay tahay dad aan shalay muuqan oo aan sharci wuxuu yahay iyo ma arkino maxaan ku rahdaa ii sheeg waxa sharci looga hadla iyo xuquuq sharci lagu leeyahay aan maarata raadin jirin baa maanta micnihi soo baxaayo sidaan hore kuugu sheegabana sharcigan marka la fiiriyo
waa wax marka la fiiriyo haddii dadka naafada aan officially ama si rasmi aan loogu xusin maxay hayto dastuurka kumeel gaarka ee dalkan hadda u yaallo sidiisaba harad maraayo xaqa bulshada u baahan ama sharciga lagu maamulayo ama qaybta ka ah runtiina aan simayn mar hadduu saas yahana waxaa lagu tilmaami karaa de inuusan sharci dhammaystiran ahayn loona baahan yahay la tashigiisa in dib loogu laabto lana ballaariyo ilaa maxaan ku rahdaa la gaaro halkii ugu sarrayso oo ah in bulshadao dhan sharcigan uu wada maarata maamulayo ama uu maarata lagu wada dhaqi karo ee dadku maarata isu wada ogolaadaan taasna dabcan dee annaga kaliya naguma xirna waxay ku xiran tahay dadkao dhan inay gacan nagu siiyaan waa tahay cabdifataax sharcigan muddo ayuu soo socday inta golaha meel marin kadib madaxweynahan uu saxiixin intaasi idinka ma ogeen miyaa in wax un ka mid xuquuqdiina ay ku jirto waa su-aasha dad badan ee haddana weydiinayaan markaan xaqiiqada ka hadalno sharcigan horta muddo soo socday weliba xataa muddo yar ma aha tusaale ahaan hadda 2015kii waxaa ansixiyey baarlamaankii 9aad baa ansixiyey madaxweynihii waqtigaas mudane xasan sheekh maxamuud wuu u saxiixay haddana sharciga dib buu usoo noqday sababto dib ugu soo noqonaya markasta waxay ahayd doldololaha ku jiray doldololada ku jiray haddii si dhaba loo haqabtiri lahaa waxaa aaminsannahay dabcan meelaha kan uusan soo gaareen oo ilaa maarkino gaari lahaa in sharcigii la dabaqo oo la dhaqan geliyo laakiin hadda waxyaabaha ku jiro marka loo fiiriyo sharcigan dadka naafada oo keliya xitaa khatar kuma aha caqabadna kuma aha waxyaabaha caqabadda uu ku noqonaya waxay tahay dadka caadiga ama warbaahinta furanaya ama hadda warbaahinta shaqeysa laftirkooda caqabada ku yahay sababtoo ah sharciga waxyaabaha uu tilmaamaya waxaa ka mid ah tusaale ahaan in lagu leeyahay markaad laysin qaadanayso warbaahin cusub ama aad maarata mid hore aad maarata isha lacagteeda bixinayso waxaa lagu leeyahay dabcan lacagtan intee ka keenta yaa maarata isheeg maxay ahayto warbaahintaada maalgelinaya oo kuu furaayo marka waxyaabaha waxay ka mid tahay aanba saxda ahayn tusaale haddaan hadda soo baxo oo dukaan aan soo aado oo aan rabo inaan iibsado shaar ama wax una inaan ka iibsado aan damco haddii ninka dukaanlahaas u idhaho lacagtan xagee ka keentay runtii waa su-aal aan sax noqonayn waxaa markaas xaq u leeyahay inaan dukaankiisa iska dhaafo ama ka tago marka sharcigu haddii sidaas wax inuu u maamulo la rabo oo la rabo in warbaahintan dee dabcan afka looga qabto lagu xirxiro maxaan ku rahdaa aniga waxaan aaminsanahay inuusan de maarata sharci noqon lakin sharcigu wuxuu sharci ku noqon karaa in uu isla simo aragtida maxaan ku rahdaa dowladda maxaan ku rahdaa iyo aragtida maarata dadka sharcigan lagu maamulayo oo warbaahinta madax bannaan iyo qeybaha kale ee bulshada ah marka haddiiba xogihii maarata loo baahnaa sharcigu uu hor istaagayo ama uu soo koobayo runtii waxaa la dhihi karaa de waa wax maarata aan loo baahnayn dalkan waa dal maarata runtii dimuqraadi ah oo baarlamaani ah oo maarata nidaamka baarlamaanka maarata ku dhisan waxyaabaha kaleo cajiibka oo maarkino dadku isweydiinayaan sharcigan ku jiro waxaa ka mid ah waxaa lasoo qoray golo warbaahineed oo lagu sheegay inay madax bannaan yihiin oo maxaan ku rahdaa haddana 9 xubnood lagu sheegay 9ka xubnood horta guddigaas marka loo fiiriyo waa guddi dabcan wasiirka markasta wasaaraddaas joogay awoodda ule uu soo magacaabayo haba soo magacaaba muxume haddana talooyinka iyo go-aanada ay gaarayaan isagaa dabcan maamulayo oo ay hoos joogayaan marka laguma tilmaami karo guddi madax ama golo madax bannaan sababtoo ah haddii golo lagu tilmaamayo qodobka 113aad maarata ee ka hadlaya dhismaha guddiyada madaxa bannaan si loo dhisay ee dastuurka kumeel gaarka ayaa la waafajin lahaa oo hadda sida guddiga doorashooyinka madaxa bannaan u dhisan yahay oo kale ama maxay ahayto guddiga xuduudaha iyo federaalka kale sida u dhisan yahay ama guddiyada kale guddiga la dagaalanka musuqmaasuq oo kale sida loo dhiso ayuu dabcan noqon lahayd in loo dhiso haddii golaha laga rabo madax bannaani iyo guddi hadduu yahay guddi madax bannaan oo maarata inuu shaqeeyo laga rabo marka waxaa taas ay ku muujinaysaa in maxay ahayto la tashigii loo baahnaa iyo maarata in dadku ay aragtidu qeybkooda ahaadaan aan maarata laga shaqayn marka aan usoo laabto maxaa idinku maxaad dabcan intaas la tashi u maraayo aad qeyb uga noqon weyseen waxyaabaha annaga aan runtii qeybta uga noqon weynay waxay tahay horta maba la aaminsanaba dad maarata naafo ah ama disability inay jiraan oo warbaahinta ay ka shaqeeyaan maanta oo warar ay soo gudbiyaan barnaamijyo ay sameeyaan waxna ay qoraan runtii lama aaminsano haddii taas ay jiri lahayd dabcan dee maarata waaba naloo yeeri lahaayo kulamada ama wasaarad ha noqoto ama guddiyada baarlamaanka labadiisa aqal ee ku shaqada leh dib u egista xeerkan waa noo yeeri lahay waxna waa nalaka weydiin lahaa ma dhicin marka waxaa rabaa inaan kuu sheego hadda adan aan kula hadlayo guddigii baarlamaanka golaha shacabka u xil saarnaa maxaan ku rahdaa dib u egista xeerkan oo kale ya
marka la fiiriyo xubnihii qaybta ka ahaa marka laga reebo guddoonkii guddigaas iyo ku-xigeenadiisa iyo xogahihii marka laga reebo inta kale xubnihii kale baarlamaanka ku jira guddiga waa ka wada baxeen sababta looga wada baxaana waxay tahay xeerkii warbaahinta waa la meel mariyey sharciga isgaarsiinta qarankana waa la meel mariyey marka haddii sharcigii isgaarsiinta iyo xeerka warbaahinta la meel mariyey macnaheedu waxaa loo fasiray guddigan inaan wax dambe oo shaqo ah uu qabanayo